بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فرينتم waxay ku socotaa Sheekh Somo. Sheekh Somo bulshada Soomaaliyeed waxay ku weydiinaysaa yay tahay cid ku banaysay inaad diido xadiiskii saxiixa ahaa ee ku jiray صحيح البخاري سنن أبي داود سنن البيهقي المعجب الكبير للطبراني الدرر المنثور لجلال الدين السيوطي الطبقات الكبرى لابن سعد كاسو كنت المامة هي النبي محمد عليه الصلاة والسلام من هويني إنجيل أي كجريسي إنا ديدو حديثك إنت اسكجرا عبد الرحمن عبد الشكورنا ودي ديسا إنو ديدو أما أوبينيو حديث meel uga dhacaya karaamada iyo sharafka insaanka si gaar ah meel uga dhacaya maaragtay xawaleeyda kuna tilmaamaya nus ama manga mujtamaca Soomaaliyeed waxay idin weydiinayaan hadii aad u aqoonsan tihiin dumarka inay yihiin nus ama mangaab sideed raali uga noqoteen inay madax ka noqdaan dawladda federaalka ee Soomaaliyeed ee adiga iyo xirtaaduba aad u aqoonsan tihiin dawladnimada mujtamaca Soomaaliyeed waxay idin weydiinayaan sidee qof nus ah ama mangaab ah ay u soo saari kartaa qof dhamays ah mujtamaca Soomaaliyeed waxay idin weydiinayaan sidee qof nus ah ama qof mangaab ah looga rabi karaa cibaado dhamaystiran maadaama uu sanba dhamays ahayn aqligiisuna uu nusqaan yahay mujtamaca Soomaaliyeed waxay idin ka rabaan jawaabo mangal ah ma rabaan inaad ku galgalataan waxaan ma la yacniya waxaan rajaynayaa fariintayda hadday idin soo gaarto inaad heshaan oo bixisaan jawaabo mujtamaca Soomaaliyeed ku qanci karaan haddii aad bixin weydaan waxaa la idin arkayaa rag maalin walbaba meesha ay doonaanna yeela meesha iyagu aan anfacayninna ee maaragtay ka taga meesha anfacaysana ka qaata dad mujtamaca Soomaaliyeed caqabad ku ah horu socodkiisa horumarkiisa fakarka bini'aadamnimadana caqabad ku ah baa la idin arki doonaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka qaadan doontaa go'aan la mid ah go'aankii ay ka qaadatay asxaabu dacwa najdiyya haddii aad tihiin ashaacira haddaad tihiin wey waxaa la idinka rabaa inaad ka soo garbaxdaan bulshada Soomaaliyeed ee idin dhegaysanaysa ee idin maqlaysa ee aad u tihiin indhaha ee aad marayn habaabinaysaan inaad ka soo garbaxdaan oo aad u sheegtaan wadada toosan ayaa la idinka sugaya fariintan kooban hadday ku soo gaarto waxaan rajaynayaa inaadan ku meeraysan macnaha maaragtay nabi maxamed injirti laga baadi goobahay ma ahayn ereyga iyo noocaas erey bixintu waa erey bixin ku cad luqadda carbeed nabi maxamed in injir laga baadi goobahayna intaas oo kitaab aan soo xusay ayay ku taala waxba idiima tarayso macnaha inaad bedeshaan waxa kaliya ee aan idinka sugaynaa waxa weeye jawaab waafiya oo dhagaha qof kasta oo maaragtay dareynaya inuu wax si maangal ah u qaato anfici doonta waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idmo inay idin soo gaarto fariintaas bulshada Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa inay qaadaan fariintaas una geeyaan cida ay ku socoto wabillahi tawfiiq wallahu yaqulu alhaq wa huwa yahdi as-sabil